heshiiskii 17 Sebtembar waxa uu ahaa heshiis doorasho oo uu gacantiisa ku soo qoray madaxweynaha Puntland kaasi oo markii dambe ka hor yimid sabab la'aan. dadka oo dorasa arrimaha siyaasadda dalka ayaa ku micneeyay in madaxweynaha Puntland iyo dhigiisa Jubbaland aysan diyaar u ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho oo ay ka doorbideen qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni taasi oo natiijadeeda laga arkay caasimadda. maxaa caqabada ah oo ay hordhigeen heshiiskaasi? kala diridda baarlamaanka, hoos u dhigidda awoodda madaxweynaha iyo in la eriyo taliyayaasha ciidamada waxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa oo ay xeendhaab kaga dhigeen heshiiska oo ay soo ifbaxday in ay gadaal ka riixayaan dawlado shisheeye sida Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo iyagu gabi ahaanba diidan dawladnimada sii xogeysanaysa ee dalka. tusaale, caqabadahan ayaa yimid wax yar kadib markii labadaasi madaxweyne ay safarro ku kala tageen wadamada Imaaraadka Carabta iyo Kenya. baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si dhow ula socday carqaladeynta labadaasi madaxweyne iyo tanaasulaadka madaxweyne Farmaajo ayaa meel mariyay sharciga jiheynta doorashooyinka oo dalka muddo 2 sano ah ku hogaaminaya doorasho qof iyo cod. haddaba waxaa dib loogu laaban doonaa heshiiskaasi oo baarlamaanka Soomaaliya mar kale uu ogolaaday in saldhig uu u noqdo doorashada maadaama Muqdisho ay wax uga dhaceen sidii ay rabeen labadaasi maamul ee Puntland iyo Jubbaland. balse dawladda federaalka oo garasiisan muhiimadda ay leedahay badbaadada shacabka iyo nabadgelyada caasimadda ayaa muujisay tanaasulaad fara badan iyadoo madaxweynuhu uu si degdeg ah u hortagay baarlamaanka si xaqul ay ku keenaan. su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay noqonaysaa tilaabada xigta oo madaxda Puntland iyo Jubbaland ay u qaadayaan kulamada doorashooyinka ee haatan gacanta loo geliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya? waa su'aal jawaabteeda si weyn loo dhowrayo. sawirada aan wanaagsaneyn ee maalmihii la soo dhaafay laga bixiyay dawladnimada dalka ayaa waxa ka mid ah in la siyaasadeeyay ama la qabiileeyay ciidamadii qaranka oo loo adeegsaday horinta colaado sokeeye. waana tilaabo ugub ah oo lagu soo kordhiyay nidaamka dawladnimada dalka muddadii ugu dambeysay. su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ah heshiiskii shalay ay diideen maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland maanta ma ogolaan doonaan? maxaa laga dhaxli karaa qalalaasihii xamar ka dhacay haddiise siyaasiyiinta mucaaradka iyaga madaxweyne noqdaan beri? sidee u xakameynayaan gabadfalada dawladnimo ee haatan ay geysanayaan?